السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وناكسن كسو دوادا جنال كينا فرحي فيرسن اوفيشيال هدو ايبوين ايدين نو ايد مامانت وحان ايدين ودا جالنتي ان شاء الله waxaan ku leenahay soo dhawo magacaada saddexaan isbar asxaabta aad iyo aad u mahadsan tahay farxiyo Hashim Azhar awalan markaan ku bilaabo magacayga waa Cabaas Sheekh Ibraahim waxaan diyaar u ahay inaan challenge kula sameeyo maanta asxaabtaadana ay ka heli doonaan insha Allah taala insha Allah waxaan ku leeyahay soo dhawo bako aragtaan waxaa soo qaban doonaa xarafkaas saddex xayawaan oo kamid ah sheegi doonaa insha Allah la socod wanaagsan waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontaan Cabaas anma ku bilaawayo mas'ada bilaawaysid mahadsan tahay farxiyo haddii aad bilaawdid iyo haddii aan bilaabo isla mid inta su'aal aad ii weydiisid in la mid ah adigana ku weydii doonaa waxaa weliba jeclaan lahaa inaad adiga bilaawdid إن شاء الله هذا أنا بلابو إن شاء الله سؤال ويدين دونا بحيث هاي وحوشيك دونا سد حيوان وقبل مقعود بع وما سنتهاي حيوانات بع مقعود قبل هذه أنا اسكت ديو حواي وحقوه رئيسه برمبر وعيانة بعيد وحيوان كلا يبقل وأيضا حيوان كلا waxaad sheegtaa saddex xayawaan oo ka bilowda xarafkooda laba xayawaan la aan dhaho oo xarafkooda ka bilowda da إن شاء الله هذا اسكت ديو جوابتي waxay tahay dameer iyo dayr dameer iyo dayro waa sax su'aasha tookada su-aasha xigta waxaad sheegtaa saddex xayawaan oo ka bilowda magacooda ya midka ugu horeeya horta waa yaxaas midka kale midda kale ii sheeg إن شاء الله وعكون شاك دونا مركز سؤال يسوي دي سد هذاك الجواب مكون شاك دونا لكن هذاك الجواب سؤال هذا وكان وفو شاك waxaad sheegtaa xayawaan ka bilowda xarafka wa hal xayawaan ma ku sheega labo okay laba xayawaan oo ka bilowda xarafka wa weyl tan kalane أنا بيستأثر و ها مكسي هذا الشيء waayahay mid waxa waaye shimbir waaye wiira la dhahaa midda kalene waa wiyil aad dhihi kartaa ama weyl labadaba waa isla mid adigana xujadaada ii fur أنا waxay ahayd nyaanyur waa sheegtay xaas waa sheegtay mid saddexaadna waxay ahayd waaw anay biga dhintay yuley yey yuley yey iyadan mid kale waa yey haddaaba soo xasuustay waa xujadeena waa furta waxaa sheegtaa may waxaa sheegtaa xayawaan laba xayawaan oo ka bilaabata xarafka ga waa geri iyo guumbeys ama guumeys geri iyo guumeys waxaad sheegtaa laba xayawaan oo ka bilowda xarafka sa imise xayawaan hal xayawaan shabeel
xarafka sa ku dhahay shabeel sha ku bilowda sa ma kasay ana ku weydiin doona haddaa iga jawaabaysa dacdina kugu soo celin doonaa waxaad sheegtaa xayawaan xarafkiisa ka bilaawdo laba xayawaan oo xarfahooda ka bilaawdaan h mase he xayawaanadii oo dhan markaan raadis ku galo xayawaan ha ka bilowda anaga koonfuraan nahayo shimbirta dafada la yihahdo waxaa u naqaanaa huunfey ha waaye hada kalena haad waa haad iyo huunfey waa laba shimbir waa okay midaada ii sheeg xayawaanka iska bilowdo sagaaro waay sagaaro okay adi waayna waayahay su-aasha xigta waxaa waaye su-aal aada u fudud oo ku weydiinaa waxaad sheegtaa xayawaan magaciisa ka bilowda xarafka ra waana hal xayawaan xayawaankaas rake anaa ku weydiinaya okay waxaad sheegtaa xayawaan ka bilaawdo laba xayawaan magacyadoodana ka bilaawdaan na hal waxa waaye nibiri waaye midka kale mid nibiri waaye midka kale maskaxda raadisay haysaa hay dhararin midka koowaad waa nibiri waxaad moodaa su-aalihii inaad igu adkeynaysa meesha aniga hal aan kaa weydiiye laba i weydiinay mid nibiri waaye midka kale mid nibiri waaye midka kale adiga kaaro inay sheegto insha allah adaa isoo weydiinaysid dacdeen hadday sheegi waaysid waa kuu sheegaa waay su-aashii igu dambeysay oo xaggayga ah markaan ku weydiiyo waxaad sheegtaa waana maanta oo dhan saddex su-aal laba su-aal weydiinaysay ana hal su-aal oo ku weydiinaya waxaanu filaa asxaabta ayagan inay mid faa'iido badan u noqon doonto xayawaanka keliya ee abtirsiga leh aa lagaa rabaa inaad sheegtid abtirsigiisa ilaa iyo 3 abtirsi oo gaara inaad sheegtidaan kaa rabaa macnaade xayawaanka keliya ee abtirsi leh sheeg caawa kuule cali banjo astaqfirullah alcadiim insha allah waa ka jawaabay su-aashaas makaaga jawaabi doono sababtoo ah assignment ahaan u qaado insha allah tookada dambe inta isla soo fadhiisan doonaa laga sugaa aad iyo aad umahadsan tahay waxaan filaa adiga naftirka in research ahaan aad u qaadatid sababtoo ah su-aalihii aad isoo weydiisay dhan midii u adkaato aad iga jawaabaysay oo jawaab celin isiinaysay midaan adiga naftirka inaad baxsi ahaan aad soo raadisid waa rajeynaa anigana waa soo raadinaa asxaabta waad mahadsan tihiin waxaad idin kala soo hadlayna waa Yaxya Filsan official waad ku mahadsan tihiin dhegeysiga challenge-ga midka xiga midkan ka qiimo badan isla markaasna ka faa'iido badan ayaa soo diyaari doona hadduu ilaahay yiraahdo waad mahadsan tihiin farxiyo adigana waad mahadsantahay walaashay adiga mudan waxaan ku leenahay soo dhawow aniga asxaabtaydaba insha allah mid lacaan intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaanaha allah isma dhaafno ha inaga hilmaamina sheerta commentiga iyo subscribe-ka intaba waxay noo yihiin dhiirigelin insha allah asalaamu calaykum